Mumbai habeenkii way aamusan tahay, laakiin sheekadan waxay beddeli doontaa nolol badan. Arjun wuxuu ku koray xaafad sabool ah. Ma lahayn lacag badan, laakiin wuxuu lahaa qalbi weyn iyo riyooyin aan dhammaanayn. Carruurnimadiisii waxaa dhinaciisa joogay hal qof, saaxiibkiis ugu dhow Karan Singh. Labadoodu waxay ahaayeen sida walaalo. Arjun iyo Karan waxay wadaageen gaajo, dhibaato iyo riyooyin. Mid walba wuxuu aaminsanaa in maalin uun ay noloshoodu isbeddeli doonto. Arjun hooyadiis Shanti Devi waxay mar walba ku celin jirtay hal cashar: daacadnimadu waa hantida ugu weyn ee qofku leeyahay. Shanti Devi waxay tiri, Arjun, lacagtu way imaan kartaa wayna tegi kartaa, laakiin sharafku weligiis ma lumi doono. Arjun wuxuu qalbigiisa ku xafiday erayadaas. Arjun wuxuu naftiisa u ballanqaaday inuu maalin uun guul gaari doono, isaga oo aan lumin qiyamkiisa. Sannado badan kadib, Arjun iyo Karan waxay heleen fursad weyn oo beddeli karta mustaqbalkooda. Markii ugu horraysay ayay la kulmeen Rajveer Khanna, nin caan ku ahaa awood, lacag iyo saamayn. Rajveer wuxuu ku yidhi shaqaalihii, dunidan waxaa maamula awood iyo lacag, ma aha dareen. Qolka oo dhan ayaa aamusay. Arjun hadalkaas ma jeclaan. Wuxuu aaminsanaa in dadka lagu qiimeeyo qalbigooda, ee aan lagu qiimayn hantidooda. Isla maalintaas, nasiibku wuxuu u keenay kulan beddelay noloshiisa. Arjun wuxuu markii ugu horraysay arkay Priya Sharma. Kulankii kadib, Arjun wuxuu keligiis istaagay daaqadda isagoo ka fikiraya mustaqbalkiisa iyo jidka uu dooran doono. Priya waxay dareentay in Arjun uu ka duwan yahay dadka kale ee ay la kulantay. Arjun iyo Priya waxay wada sheekaysteen saacado badan, iyagoo isla markiiba dareemay xiriir qoto dheer. Maalmaha xigay, jacayl cusub ayaa si tartiib ah qalbiyadooda ugu dhex abuurmay. Karan wuxuu u muuqday mid ku faraxsan saaxiibkiis, laakiin gudaha qalbigiisa wax kale ayaa ka socday. Markii ugu horraysay, Karan wuxuu dareemay inuu had iyo jeer ku noolaa hooska Arjun. Rajveer Khanna wuxuu arkay daciifnimada Karan, wuxuuna go'aansaday inuu ka faa'iidaysto. Rajveer wuxuu Karan ku yidhi, adigu waxaad mudan tahay wax ka badan noloshaan yar. Karan wuxuu weydiiyey Rajveer waxa uu uga jeedo. Wuxuu dareemayay in albaab cusub uu furmayo. Rajveer wuxuu ku yidhi, awoodda lama siiyo dadka wanaagsan. Waxaa hela dadka geesinimada leh. Erayada Rajveer waxay bilaabeen inay maskaxda Karan si tartiib ah u beddelaan. Dhanka kale, Priya waxay dareemaysay in wax khaldan ay ka socdaan shirkadda dhexdeeda. Priya waxay uga warantay Arjun shakigeeda, laakiin Arjun weli ma arkin khatarta soo socota. Rajveer wuxuu Karan siiyey dalab beddeli kara noloshiisa. Dalab awood iyo maalba leh. Karan wuxuu weydiiyey, maxaan helayaa haddii aan aqbalo? Rajveer wuxuu ugu jawaabay, waxaad heli doontaa wax kasta oo aad weligaa ku riyootay. Habeenkaas Karan hurdo ma helin. Wuxuu u dhexeeyey daacadnimo iyo damac. Subaxdii xigtay, Karan wuxuu gaaray go'aankii ugu weynaa noloshiisa. Karan wuxuu aqbalay dalabkii Rajveer. Saaxiibtinimadii dheerayd waxay gashay waddo khatar ah. Arjun wuxuu dareemay in Karan isbeddelay, laakiin weli ma fahmin sababta dhabta ah. Karan wuxuu bilaabay inuu ka fogaado Arjun, isagoo sir badan qarinaya. Priya waxay isku dayday inay dib isugu soo dhowaadaan labada saaxiib, laakiin xaaladdu way sii xumaatay. Rajveer wuxuu bilaabay qorshihiisii ugu weynaa, qorshihii dhaawici lahaa Arjun. Arjun ayaa si been abuur ah loogu eedeeyey musuqmaasuq uusan gelin. Qof walba wuu yaabay. Arjun wuxuu isku dayay inuu difaaco naftiisa. Priya waxay ahayd qofka keliya ee si buuxda u rumaysnaa inuusan Arjun dambi lahayn. Baaritaan qarsoodi ah kadib, Priya waxay heshay xog khatar ah oo ku saabsan Rajveer. Priya waxay ogaatay in Rajveer uu ahaa maskaxdii ka dambaysay dhammaan qorshaha. Priya waxay la carartay caddaymaha. Hadda waxay ogayd in nolosheedu halis ku jirto. Rajveer wuxuu ogaaday in sirtiisii la helay. Wuxuu amar ku bixiyey in Priya la qabto. Priya waxay si degdeg ah ula xiriirtay Arjun, iyadoo u sheegtay inay heshay runta oo dhan. Arjun wuxuu la yaabay waxa uu maqlay. Qofkii uu aaminsanaa ayaa qayb ka ahaa khiyaanada. Karan wuxuu maqlay qorshaha Rajveer. Markii ugu horraysay, wuxuu dareemay qoomamo dhab ah.
karan wuxuu fahmay in rajfeer uusan weligiis saaxiib u ahayn. Wuxuu ahaa qayaanoole. karan wuxuu go'aansaday inuu saxo khaladaadkiisii, xitaa haddii ay wax walba ku kacayaan. karan wuxuu la kulmay Arjun. labadoodu waxay istaageen iyagoo aamusan dhowr ilbiriqsi. karan wuxuu yidhi, waan qaldamay Arjun. waxaan doortay damac halkii aan ka dooran lahaa saaxiibtinimada. Arjun wuxuu eegay saaxiibkiisii hore. wuxuu ogaa in dagaalkii ugu dambeeyey uu hadda bilaabanayo. Arjun iyo karan waxay ku heshiiyeen inay wada muujiyaan runta, si ay u joojiyaan rajfeer hal mar iyo weligiis. Briya waxay keentay caddaymaha ugu muhiimsan, kuwaas oo burburin kara boqortooyada rajfeer. rajfeer wuxuu ogaaday in dhammaan qorshayaashiisii ay burburayaan, wuxuuna galay xanaaq aan horay loo arag. magaalada oo dhan waxay sugaysay natiijada dagaalka u dhexeeya runta iyo musuqmaasuqa. tani ma ahayn dhammaadka sheekada. waxay ahayd bilowga cutub cusub oo ay runta ugu dambayn guulaysatay. subax cusub ayaa ka bilaabatay Mumbay. dadku waxay bilaabeen inay maqlaan runta ku saabsan rajfeer Khanna. rajfeer weli ma uusan isdhiibin. wuxuu diyaarinayay qorshihiisii ugu dambeeyey. karan wuxuu go'aansaday inuu markhaati rasmi ah ka noqdo dembiyadii rajfeer. briya waxay ururisay dhammaan caddaymaha si loo xaqiijiyo in rajfeer uusan mar kale baxsan karin. Arjun wuxuu dareemay in dagaalkii ugu dambeeyey uu soo dhow yahay, laakiin markan keligiis ma ahayn. habeenkaas rajfeer wuxuu go'aansaday inuu magaalada ka baxsado ka hor inta aan la xirin. laakiin Arjun ayaa helay xog ku saabsan meesha uu rajfeer ku dhuumanayo. Arjun, Briya iyo karan waxay u dhaqaaqeen goobta ugu dambaysa ee lagu soo afjarayo sheekadan. markii ay gaareen dekedda, rajfeer hore ayuu u sugayay. rajfeer wuu qoslay. wuxuu aaminsanaa inuusan qofna ka adkaan karin. Arjun wuxuu u sheegay in wakhtigii awooddiisu dhammaatay. rajfeer wuxuu isku dayay inuu karan mar kale dhinaciisa ku soo celiyo. karan wuxuu ugu dambayn doortay saaxiibtinimada halkii uu ka dooran lahaa damac. rajfeer wuxuu isku dayay inuu baxsado, laakiin ciidamada ayaa goobta soo gaaray. dhammaan dembiyadii rajfeer waxaa lagu caddeeyey maxkamadda. magaalada Mumbay waxay u dabaaldegtay guusha runta iyo cadaaladda. karan wuxuu dib u helay kalsoonidii saaxiibkiis iyo ixtiraamkii uu lumiyey. Briya iyo Arjun waxay bilaabeen nolol cusub oo ka fog cabsi iyo khiyaano. Shanti Devi waxay ku faantay wiilkeeda oo ilaaliyey qiyamkii ay bartay. sheekadu waxay ina bartay in saaxiibtinimada, jacaylka iyo daacadnimadu ay ka xoog badan yihiin lacag iyo awood kasta. maanta waa sanad guuradii maalintii aan Meera jeclaaday. weli qalbigayga kama bixin. jacaylkeenu waa ka weyn yahay wax kasta. 3 sano ayaa ka soo wareegtay maalintii ugu dambaysay ee aan arko gacalisadayda Meera. wakhtigu wuu socday, laakiin qalbigaygu halkiisii ayuu taagan yahay. qof walba wuxuu ii sheegay inaan ku iloobo, laakiin sideen ku iloobi karaa qof aan weligay ka bixin qalbigayga? Meera, wax badan ayaan ku sugayaa. maalin kasta waxaan is-iraahdaa maanta waan iloobayaa. laakiin habeen kasta waxaan ogaadaa inaan weli ku noolahay xasuusteedii. warqaddan gacantayda ku jirta waxaan qoray 3 sano ka hor. waxay ahayd warqaddii ugu muhiimsanayd ee aan noloshayda qoro. waxaan rabay inaan u sheego inaan jeclahay. laakiin mar walba waan baqayay. waxaan ka baqayay inay i diiddo. laakiin maanta waxaan ogahay in qaladkayga ugu weyn uu ahaa inaan aamuso. waayo maalintii aan go'aansaday inaan hadlo, waxay ahayd maalintii aan waayay. waxay ahayd maalin caadi ah, ama ugu yaraan sidaas ayaan moodayay. waxaan ku mashquulsanaa noloshayda, anigoon ogayn in wax walba ay isbeddeli doonaan daqiiqado gudahood. kadibna indhahaygu waxay qabteen qof aanan weligay iloobi karin. markii ugu horraysay ee aan arkay, wakhtigu wuxuu ila noqday inuu istaagay. ma aqaan sababta, laakiin qalbigayga wuxuu ii sheegay inaan mar uun muhiim isu noqon doono. mararka qaar noloshu digniin nama siiso marka ay qof muhiim ah noo soo dirayso. waxaan moodayay inay noqon doonto xasuus qurux badan.
laakiin ma aanan ogayn inay noqon doonto dhaawac aan weligay ka bogsan karin. wax walba waxay ka bilowdeen warqad yar oo aan weligay dirin. haddii aan maalintaas geesinimo yeelan lahaa, waxaa laga yaabaa in sheekadaydu maanta ka duwanaan lahayd. waxaan xasuustaa habeenkii aan go'aansaday inaan qoro warqaddaas. warqadda waxay ahayd mid sahlan in la qoro, laakiin qalbigayga ayaa adkaa in uu runta qirto. markii ugu horraysay noloshayda, waxaan isku dayayay inaan erayo ku sharaxo dareen aanan fahmi karin. waxaan qoray in dhoolla caddaynteedu ay iftiin u ahayd maalmahayga ugu mugdiga badan. waxaan qoray in codkeedu uu ahaa heesta aan ugu jeclaa adduunka. waxaan qoray in aanan maalin keliya ku farxin markii aanan arkin. markii aan dhammeeyey qorista, waxaan dareemay in culays weyn iga degay. laakiin waxaan weli ka baqayay waxa dhici doona haddii ay akhrido. mararka qaar waxaan isweydiiyaa in geesinimadu ay tahay inaad runta sheegto ama inaad aamusto si aadan u lumin. subaxdii xigtay, waxaan qaatay go'aankii ugu muhiimsanaa noloshayda. qaybta xigta waxay noqon doontaa maalintii Kabiir uu warqadda gacanta ku sitay si uu ugu dhiibo gabadha uu jeclaa. waxaa halkaas ka bilaabanaya isbeddelka weyn ee sheekada. la soco musalsalka. magaalada Mumbai waxaa ku nool nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Aditya. waa nin maalqabeen ah oo wakhtigiisa ku bixiya madadaalo iyo nolol raaxo leh. inkastoo uu haysto lacag iyo nolol wanaagsan, haddana Aditya ma ahan qof si dhab ah u qaata jacaylka. maalin maalmaha ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu galo safar markab weyn oo ay dad badan saaran yihiin. isla markabkaas waxaa saaran gabadh qurux badan oo lagu magacaabo Nayna. Nayna waa gabar leh qalbi wanaagsan, akhlaaq sare iyo himilooyin cad oo mustaqbalka ah. Aditya wuxuu markii ugu horaysay indhaha ku dhuftay Nayna, waxaana markiiba soo jiita quruxdeeda iyo degganaanteeda. Aditya wuxuu isku dayaa inuu la hadlo, balse Nayna ma siinayso dareen badan. maalmihii xigay waxay marar badan isku dhaceen markabka dhexdiisa. si tartiib tartiib ah ayay wada hadalladoodu u bateen. Nayna waxay bilowday inay aragto dhinac wanaagsan oo Aditya leeyahay. Adityana wuxuu bilaabay inuu si dhab ah ugu dhaco jacaylka Nayna. habeen kasta waxay wakhti badan ku qaataan markabka dushiisa iyagoo sheekooyin wadaagaya. jacaylkii u dhexeeyey wuxuu noqday mid sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambaysa. laakiin labadooduba waxay leeyihiin nolol kale oo markabka dibaddiisa ah. mid kasta wuxuu leeyahay qof kale oo uu hore ula ballansanaa, taasoo jacaylkooda ka dhigaysa mid adag. inkastoo ay isjecel yihiin, haddana Aditya iyo Nayna waxay og yihiin in mustaqbalkoodu uusan fududaan doonin. safarkii markabka ayaa si tartiib tartiib ah u soo dhammaanaya, taasoo qalbiyadooda murugo gelinaysa. habeenkii ugu dambeeyey ee markabka waxay wada qaateen wakhti xusuus gaar ah leh. labadoodu waxay qirteen in jacaylkoodu yahay mid dhab ah. subaxdii xigtay, markabkii wuxuu gaaray dekedda. wakhtigii kala tagga ayaa ugu dambayn yimid. ka hor inta aysan kala tegin, waxay sameeyeen ballan muhiim ah. waxay ku heshiiyeen inay dib isu arkaan 6 bilood kadib. markii ay kala tageen, qalbigoodu wuxuu sii watay xusuusta safarkii markabka. Nayna iyaduna waxay ku noqotay nolosheeda caadiga ah, balse qalbigeedu wuxuu la joogaa Aditya. maalmaha ayaa sii socda, jacaylkooduna wuu sii xoogaysanayaa. Aditya wuxuu ogaaday in Nayna ay tahay jacaylka dhabta ah ee noloshiisa. wuxuu go'aansaday inuu beddelo dhaqankiisii hore. wuxuu noqday nin mas'uuliyad leh oo diyaar u ah mustaqbal cusub. dhanka kale, Nayna waxay tirinaysaa maalmaha ka harsan kulankooda weyn. ugu dambayn, maalintii ay muddo sugayeen ayaa timid. Aditya wuxuu dareemayaa farxad iyo walbahaar isku dhafan. wuxuu xirtay dharkiisii ugu quruxda badnaa, isagoo rajaynaya inuu mar kale arko Nayna. dhanka kale, Nayna iyaduna si farxad leh ayay ugu diyaar garoobaysaa kulankooda. waxay aaminsan tahay in maanta ay tahay maalinta ugu muhiimsan nolosheeda. Aditya wuxuu u baxay goobtii ay ku ballameen isagoo qalbigiisu degdeg u garaacayo. Naynana waxay ku socotaa isla goobtaas iyadoo wejigeeda ay ka muuqato farxad. laakiin nasiibku wuxuu watay dhacdo aan cidina filayn. hal ilbiriqsi gudaheed, shil baabuur ayaa dhacay. dadkii ag joogay waxay ku yaaceen inay caawiyaan. Nayna waxaa si degdeg ah loogu qaaday isbitaalka.
dhanka kale Aditya wuxuu ku sugayaa goobtii ballanta. daqiiqadaha waxay isu beddeleen saacado. wuxuu bilaabay inuu dareemo walwal weyn. ugu dambayn wuxuu maqlay war naxdin leh. markuu ogaaday wixii ku dhacay Naina, isla markiiba wuxuu u cararay isbitaalka. Aditya wuxuu ugu dambayn gaarayaa isbitaalka isagoo neeftu ku dhegtay, qalbigiisana ay ka buuxdo cabsi iyo walwal. markii uu qolka galay, wuxuu arkay Naina oo sariirta isbitaalka saaran. indhaha Naina waxaa ka muuqda murugo, maadaama ay og tahay in nolosheedu aysan sidii hore noqon doonin. dhakhaatiirtu waxay u sheegeen in dhaawacyadu ay saamayn weyn ku yeesheen awooddeeda socodka. Naina waxay dareemaysaa in riyooyinkeedii iyo mustaqbalkeedii ay burbureen. waxay ka baqaysaa in Aditya uu ka tago marka uu arko xaaladdeeda cusub. laakiin Aditya qalbigiisu ma isbeddelin. wuxuu u sheegay in jacaylkiisu uusan ku xirnayn qurux ama xaalad jireed. erayadaas waxay si qoto dheer u taabteen qalbiga Naina. maalmaha xigay Aditya wuxuu noqday qofka ugu weyn ee taageera Naina. wuxuu maalin kasta ku dhiirigeliyaa inay sii dagaalanto. si tartiib tartiib ah ayay Naina dib ugu heshay rajadii ay lumisay. waxay fahantay in jacaylka dhabta ahi uu ka xoog badan yahay caqabad kasta. labadoodu waxay go'aansadeen inay mustaqbalkooda wada dhistaan, iyagoo ka gudbay dhammaan imtixaanadii nolosha. sheekada Aditya iyo Naina waxay noqotay tusaale muujinaya in jacaylka dhabta ahi uu ka adkaan karo murugo, wakhti iyo caqabado kasta. filimku wuxuu ku dhammaaday muuqaal qiiro leh oo qalbiga taabanaya. magaalada qadiimiga ah ee Banaras, Dev oo indhola wuxuu fiyoolinkiisa ku dhex garaacaa hareeraha webiga Ganges. Meera oo ah qoobka ciyaare jilicsan ayaa u timid magaaladan si ay u hesho xasilooni ka hor inta aysan dhiman. dhawaqa fiyoolinka Dev wuxuu taabtay nafta Meera, iyadoo bilowday inay ku dhex ciyaarto iftiinka dahabiga ah ee qoraxda. qoyska Meera ayaa go'aansaday inay si qasab ah nin ugu daraan markii ay ogaadeen jacaylka ay u qabto Dev. xanuunka Meera ayaa sii kordhay, laakiin waxay diiday inay ka tagto magaalada iyo laxanka badbaadiyey qalbigeeda. habeen duufaan leh, ninkii loo doonayay Meera ayaa isku dayay inuu doon kaga kaxaysto webiga Ganges dhexdiisa. Dev oo maqlay dhawaqa biyaha ayaa u cararay dhanka webiga, isagoo muusikada fiyoolinka ugu yeeraya badbaadiyayaasha. Dev iyo saaxiibadiis ayaa badbaadiyey Meera kadib markii ay ka guulaysteen ilaaladii Ranfiir. mucjiso caafimaad ayaa dhacday, jacaylka xooggan iyo daryeelka Dev ayaa ka caawiyey Meera inay si buuxda u bogsato. maalintii dambe waxaa la qabtay aroos weyn oo ay ku dhex jirtay muusikada fiyoolinka iyo qoobka ciyaarka. lamaanayaashu waxay u safreen magaalada weyn ee Mumbai si ay u muujiyaan tayada muusiga ee aan caadiga ahayn. soo saarayaasha muusiga ee Mumbai ayaa diiday Dev, iyagoo u arkay kaliya wiil indhola oo jidka ka heesa. Meera waxay si adag uga shaqaysay si ay u taageerto daryeelka lamaanaheeda, inkastoo ay weli jilicsan tahay. agaasime muusig oo caan ah ayaa arkay Dev oo ku dhex ciyaaraya waddo mugdi ah xilliga roobka. Dev wuxuu markii ugu horraysay galay stuudiyo casri ah, isagoo gacanta ku haysta fiyoolinkiisii qadiimiga ahaa. markii uu bilaabay inuu garaaco, laxanka quruxda badan wuxuu gilgilay qolka oo dhan, dadkiina way la yaabeen. heesta cusub ee Dev ayaa si weyn ugu baahday dalka oo dhan, isagoo noqday xiddig caan ah. masraxa weyn ee Mumbai ayuu Dev wuxuu u garaacay fiyoolinka, xaaskiisa Meera oo samaynaysa qoobka ciyaar, kumanaan taageerayaal ah hortooda. aabbihii Meera oo dadkii dhex taagan ayaa ilmeeyey, isagoo gartay in fanku uu ka xoog badan yahay maalka. ugu dambayntii waxay ku noqdeen Banaras si ay u bixiyaan riwaayad bilaash ah oo loogu talagalay carruurta deegaanka. sheekadan waxay ina tusaysaa in fanka iyo jacaylka runta ah ay ka guulaysan karaan caqabad kasta oo nolosha. haddii aad ka heshay sheekadan taabatay qalbiyada, fadlan sabskrayb dheh kanaalka si aad u aragto sheekooyin kale. iigu qor faallooyinka qaybta aad ugu jeceshahay sheekadan, la wadaag asxaabtaada si ay u daawadaan.